السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين وايد السلام ميل كستا أدونك كجوكتين وأنا جوي فرحية أحسن تنال كيجلس ساعتين وفرحية فلوكس ما أنت فرحية محنا ودا متقانين ما أنت فرحية وحنا ودا قبلها أنا قبلها أنا رجعنا موقتين قاعد والله بالله قبلها يويلش واجع لهاي فميلا واجع لهاي إني براران فرحتكم ولادان فرحد مهم والله يوجاس هذا اسك فرح سنت مدقوبي سيدا الله حتى تاسنا اني لك فت معايسو وحارو مانت انا كهدلو قبلها وحددان يعني ريليشن شيب سمينايو ويلش ريليشن سمينايو يعني قبر كستو ويلكي جعشا ايدا تقانسو ويلكي ربطو mustaqbalka dambe inay guursato ayada taqaan waxa ku xulan lahayd laakiin waxay talooyin yar oo ka caawinaya ku sheegaya oo maxaa lii jiray aad muhiim u ah so gabdhaha badan waxay xiiseeyaan wiil six bag ni ya waa doqaad waxay xiiseen kartaa laakiin waxa ku sheegaya waxaas dhan waxa ka horeeyo maanta waxa barnaamijka igu soo riday waxaan fiirsanayay wiil oo gabdhaha wareysanayo dhahayo doqaad maxaa abaay gabadheede wiil oo six bag leh wiil oo hareed leh wiil sujuusan sale wiil inta ya waxaas dhan doqaad waa abaa waan jeclaan kartaa dhib ma lahan laakiin wiilka six bag horta six bag not big deal waa wax oo muscles oo jirkaada ilaahay ku sameeyay waaye qof kasta ku jira adiga gabadha ay xataa way ku jiraan daawanayo waa wax aad dhisan kartid oo ugu yaraan less than 1 year inay kugu qaataa laga yaabaa qof kasta suu active gareey suu xiiseeyo ku xiran tahay marka soo qodobadaas arrin ina ka hadlay gabar kasto waxa muhiim ah iyo waxa sii socon doono hadii relationship-ka wiilka ay la sameynayso ay ku guuleysato ee reer noqdaan reerkaas ma sii socon doona wuxuu ku sii socon doona jiro soo wiilku waxa ku dooranaysa ka waanayo waxay tahay abaayo marabta in wiil mustaqbal dheer la yeelatid ilmo badan aduu ilaahay qadaraa isku dhashiin guurkiin hergal sodod iyo sodoh adinkoo maxaa la jiray is ag joogtiin hadaa rabtid wiilkaas waxa ku dooran kartaa waa horta wiilka number 1 waa wiil to ilaahay ka cabsoonaa yahay qof islaam inuu yahay oo maxaa la jiray diintiisa ku adag diinta wax ka yaqaano cibaadeysto inuu yahay waaye ma aha wiil yar oo iska maxaa la jiray ciyaal balwad iska wax kasta ka suurto wiilasha noocaas laakiin haduu yahay wiil ma sha Allah masaajidkiisa aado shantiisa waqti tukado afkiisa laga amaan helo dhaqan fiican leh haduu yahay number 1 taas waa number 2 dabeecadda number 1 dabeecadda waa because dabeecadda wax ka fiican wax oo la bedeli kar maahan wiilka haduu wiil dhudhuban yahay yaa jiima u diraysaa moosalsa wax ka soo bixinaysa kaan iskaar cunto halkiya siinaysa asoo wax arkaysa neega laakiin wiil dabeecad xun adiga 6 bag la sheegtay 18 bag hayeesho wiil dabeecad xun oo warka wax yar hada dhaxdiibo is dhaxgalaayo wiilasha waa dareemi kartaa adoo shukaansanaysa dareemi kartaa wiilka inuu wiil dabeecad xun yahay wiil dabeecad fiican inuu yahay waa dareemi kartaa laba mar waxa laga yaabaa inuu ku soo waco ama adoo telefoonka maqan ama adoo seexatay ama adoo intuu ku soo waco hadhow uu xanaaqo badii qoran maxaa ku dhacay saasa yeesho يعني waxa ugu laciifsana ka hadlayn fahmaysa meesha ugu laciifsan hadhow markaas telefoon la miriso hadhow markaa guri wada gashin ka war wadad isla noolaati wax kasta is dhihaysiin haduu ku dul qaadanaynin oo dabeecad lahayn oo dulqaad lahayn oo dhaqan fiican lahayn oo wuxuu dam sameeyna oo ku xishmeenin qofka diinta ku yarta dhaqan fiican ma laabaayo qofka diinta ku yartahay xishmad ma lahan because ilaahay qof xishmeen waayo diintiisa oo ku dhaqmi waayo kuma xishmeenayo marka waxa waa inaad koos iska fiirisiin dhaqanka muhiim waa wiil dhaqan fiican leh raadso abaayo ka fiiri dhaqankiisa marka fast isbartiin waxa waa dabeecadiisa ku soo jiidato dabeecad fiican yahay number 2 inuu dulqaad leeyahay number 3 inuu dhaqan fiican leeyahay number 4 qof inuu diin leeyahay qofka muhiim waxa inuu diin leeyahay haduu diin leeyahay dabeecad leeyahay dhaqan leeyahay maxaa la jiray oo dulqaad leeyahay dulqaadkana muhiim waa haduu afartaas leeyahay ma sha Allah waa laakiin wiil waxa sameysatay wiil oo saan laho inta waaba heshaybo so the first night dabeecadiisu la soo baxaya dabeecadani waa cajiib qof dabeecad xun isma qariyo asoo waxa arkaysa wiilku indhaha ka galgalay adoo waxba ka sameyn agtiisa laba mar hadaa martid ku xanaaqsan so
dabeecada cajiib waay dhaqanka sidoo kale cajiib waaye diintana waxaa waaye maasha allah diinteena waa nasteexo hadduu qofka diin leeyahay waxaa asaaba iswaaninaa asaas ku nasteexeenaayo laakiin qofaa diin lahayn qofaa dhaqan lahayn qofaa dulqaad lahayn qofaa dabeecad lahayn naasis waa intaas qofaan lahayn kabaha qaadadhe garaawta hadduu caaw kula joogo buri farxee iskin darsanay dhiya soo gabdhaha yararka oo shukaansiga ku jiro oo haddadaan xaaladaas maraayo waa inay intaas iska ilaaliyaan wiilkana sidoo kaleeto aboo gabaraan dulqaad lahayn oo dabeecad lahayn oo diin lahayn oo dhaqan fiican aada ka dareemayn because qofka dhaqankiisa marka aa la hadleysid ama aa istaqaaniin dhaqankiisa waa baranaysaa si u dhaqmo waa baranaysaa marka intaas duusa lahayn qofka lacag dhib male waa la shaqaystaa waa la helaa waxaa idiin sheegaa hadda six bag murqa iyo waxaas waa wax la dhisto oo jirka ilaahaaba nagu sameeyo anigaan way igu jiraan adigaan way kugu jiraan qof kasta masal suulee inuu juhdi geliyo oo banaanka usoo bixiyo bis lee waaye ninkaada hadda maxaa la jira wiilka aa relationship la sameynaysid oo biri rabtid in aa maxaa la jira mustaqbal samaystiin markaa guri imaadid habeenkii subax markuu shaqadiiska imaa ama subax morning markuu tukado 6 gymkiisu aadaya quraac halkii oo sameynaysaa within 5 months 6 months inuu banaanka u imaadaa laga yaabo waxaa raadinaysid maxaa ku saaray wiilasha madmadoobaaya hadda waxaa laga dhigayaa balaayada gaaska cabti waa aragteen oo maxaa la jira waxaa la sameyn kari mala muruqa la soo bixin karaa qofkii rabo inuu skinkiis bleach gareeyo iscadeyn karaa qofkii rabo inuu hareedaha la sheegayo soo baxsado laakiin muhiimadda waxaa dabeecad aad soo garan kartaa weli ma aragti meel dhahay dabeecada lagu gadaa skin la cadeey waa la arkay qof dad is cadeey waa la arkay dad hareed soo saarto waa la arkay saliidaa jira la sheegay dad maxaa la jira muscles oo muruqa soo baxsado oo ay ku dhuudhubnay maasha allah iska dhig waa la arkay laakiin dabeecad meel lagu gado weli lama arkin dulqaad meel lagu gado lama arkin dhaqan meel lagu gado ma la arkin intaas waa inta muhiimka ah oo ba la helaynin so adigu waxaan la helay waa wax la helay faraas ka qaad waxa la helaynin abaayo wallahi dabeecada muhiim waaye wiil aan dabeecad lahayn hadaa guursatid aan the beri uu kusoo furay adigoo gabar yar ah waxaa noqonaysaa inuu ama baby markaas caloosha ku galo single mother-nimo ku goorisid ama adoo xataa aada baby yeelanin noloshaadii waxaa waxaa lagugu dhahaa gabadhan waa garoob gabadhan waa la soo furay bahdil inkasta Soomaalida ay dhahaan haddii la furo feer ma ijabayso haddii la furo feer ma ijabayso miya feer ma ijabin masoo ijabt ma ahayd ma ogi ma fiicna abaayo dhaqanka muhiim waay diinteena nasteexaba dabeecada wax la heli kara ma dulqaadkane dadnimada qofku waa inuu dadnimo leeyahay so waan ku dheereeyay gabdhow intaas iska ilaaliya please 6 bag iyo dabeecad ha isku doorsan hareed iyo dhaqan ha isku doorsan waxaas dhan waa wax maxaa la jiray waxa iska la ilaawi karo laakiin qofka nolosha dhabta ee markaas ku yimaadeen oo guriga aaraadinaysan relationship-ki xanuunkaas ay u soo maraysan ay imaadeen waqtigaas dhan kaaga dhumaay oo dabeecad ku lahayn oo ku dulqaadaneen oo dadnimo lahayn oo dhaqan fiican lahayn imagine qofka oo u horeeyo nacay adi waay because qof aad dabeecad lahayn yaa la noolaan karo qof la noolaan karo ma lahan qof aad dhaqan lahayn yaa la noolaan karo qof la noolaan karo ma marka abaayaa intaas iska fiiri wallahi muhiim waaye fi iska ilaali intaas marka waa intaasaan dhihi rabay wax waqtigaan ku dheereen waa idin jeclahay insha Allah barnaamijkeedana waa iska daba keeni doonaa ayaantaan waa mashquulay anniversary-gayga ahayd so waxaa waaye bishii honeymoon-ka ku jiro waxaan dhahay relaxina qaadanay bye waan salaamay Soomaaliyay waan jeclahay